saaxiibada waa salaamantiin kusoo dhawaada barnaamijkeena maxaa cusub inta badan caawa waxaan kaga hadli doonaa dhankaasiyo koonfur hindiya intaana guda gelin barnaamijka hadday taa markii kugu soo boqonaysa channelka subscribe noo saaran lowin inaa muuqaalka laaga noo saarto maalmo ka hor saaxiibada waxaan soo gudban in Disha Patani tirishi kuwaad ka noqon doonto Suuriya mashruuciisa xiga 42 sidaa daraadeed hadda waa official team kaskale filimka waxa ku dhawaaqeen Disha Patani inay ka noqon doonto tirishi kuwaad mashruuc xiga Suuriya weli magac loo bixin laakiin looga yeera Suuriya 42 ogaada waa marka ugu horeysa Disha Patani ka soo noqon doonto nankaasiyo fanka loo yaqaan koolida xaruntood ay tahay Tamil magaalada madaxda Janaisa daraadeed Disha Patani markaan way tilaabsatay mashruuc cusub ee gacanta ku dhigtay tiriishadan ogaada mashruuca ugu dambeeyay la daawada filimka lagu magacaabo eegbeerin rutaan sida daraadeed hadda mashruuc labaad ay saxiixatay oo Suuriya 42 tiriisha kuwaad ay ka noqon doontaa sidoo kale ogaada mashruucan duwistiisana dhawaan ay bilaaban doontaa waxaana director-ka ninka lagu magacaabo Sifan in lagu magacaabo director-ka sida daraadeed saaxiibada waa official Disha Patani tiriisha kuwaad ay mashruucan ka noqotay isla ciwaankan aan ku sii qabanay saaxiibada waxa si official loo dhawaaqay Suuriya filimkiisa 42 in filimka aad loo yaqaan 3D lagu daawan doono in ka badan 10 luqad ayaa lagu daawan doonaa ogaada waan markii ugu horeysay Suuriya film ban indimitori la magaal laga daawan doona oo sameyn doona sidoo kale maanta mashruucan waxa laga soo bandhigay muuqaal yar ayaa laga soo bandhigay ninkii Suuriya si gacanta ku haysta si sidoo kale baashi qoleydina ay garabkii saarantahay sidoo kale dabna horkiisa oo ka holcaysa daraadeed saaxiibada muuqaal yar oo motion ah maanta laga soo bandhigay sida daraadeed waa official tirishada Disha Patani ayaa tirisho kood ka noqon doonto mashruucan markaana waxaan ciwaan idinka haynaa Suldaan Mashbaab sidaan ka warqabno suldaanka ninka lagu magacaabo tarafadka waxay ku midoobo mashruuc cusub li magac loo bixin laakiin lagu yeera Suldaan Mashbaab filimkiisa 40 Suldaan Mashbaab mashruuciisa 20 sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan filimkan shaqadiisa waxay bilaaban doontaa weegan lagu soo foodlay sidoo kale waxa shaac laga qaaday director-ka filimkan sidoo kale Mashbaab sadka filimkan loo diyaar lagu duubay ee maanta tagay sidoo kale sidoo kale waxa shaac laga qaaday Mujahid mashruucan duwistiis waxay aydan ku soo biiri doontaa jadwalka kala duwista filimkan ay ku soo biiri doontaa taasoo ka dhigan jadwalka kuwaad filimkan Mashbaab kaliya ay duubi doona sida daraadeed mashruucan duwistiisa saaxiibada weega dambe ay bilaaban doontaa sida hadda shaac laga qaaday ciwaanada kala saaxiibada soo qaadan karno xakaman wiilka lagu magacaabo Balamakonda Ganesh saaxiibada wiilka mashruuciisa xiga magac ayaa loo baxshay sidoo kale waa lagu dhawaaqay sidoo kale kaartaan hortana ka muuqatana waa laga soo bandhigay ogaada ninkan waxa lagu magacaabo Balamakonda Ganesh sidoo kale ninka aan naqaan lagu magacaabo Balamakonda Sarnifas ninkaasna waa superstar weyn sidoo kale ninkan waxa lagu magacaabo Balamakonda Ganesh sida daraadeed waa official mashruuciisa xiga waxa loo baxshay ninuu student saaya lagu baxshay sidoo kale kaartaan hortana ka muuqatana waa laga soo bandhigay waa ninka lagu magacaabo Ganesh saaxiibada qiimaha badan qoriyay ku hayaan booliska sidoo kale cadeynta ardaynimada kaarkiisana oo tusay sida daraadeed saaxiibada jalaaga mashruuciisa xiga waxa loo baxshay magacaan waxa loo baxshay ninuu student saaya loo baxshay sida hadda shaac laga qaaday isla ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxa ka mid ah ninka lagu magacaabo Ram Jaran saaxiibada weyn inuu wuxuu la qaadanaya gabadha walaashiisa ninkan walaaltinimada waxay ku yaqaanayaan leey maadaama ninkan saaxiibada asiga walaashiisa sidoo kale saaxiibadeeda iyo sidoo kale gabadhan walaashiisa dadka inta badan saaxiibada ay leeyihiin waxay qaateen private jet sidoo kale dhankaas iyo saaxiibada qiimaha badan weyn ee in qurux badanna way soo qaateen sida daraadeed ninka lagu magacaabo Ram Jaran waxa leey walaashiisa iyo waqtigiisa inta badan siinaa maadaama ninkan hadda nasiino iskaga jira maadaama saaxiibada ninkan mashruuciisa weli magac loo bixin laakiin loo yar RC15 shaqadiisa ay hakad ku timaadeen sida daraadeed ninkan saaxiibada walaashiisa ee waqti iskala qaadanaya ogaada ninkan mashruuciisa xiga RC15 waxa director-ka ninka lagu magacaabo Shankar waxaana tirisha kuwadka gabar lagu magacaabo Kiara Advanaya tirisha kuwadka sidoo kale waxa producer-ka ninka lagu magacaabo Dil Raju sidoo kale mashruucan RC15 Ram Jaran saaxiibada laba wajam laba door ay ku matali doona waana ban indimitori la magaal ee laga daawan doona maadaama Ram Jaran filimkiisa ugu dambeeyay Trabar R blockbuster taariikh oo noqday sidoo kale gudaha Hindi daafaca caalamkana oo ku qabsay sida daraadeed mashruuciisa xiga RC15 waa ban Hindi sida daraadeed ninkan walaashiisa ee waqti iskala qaadanaya كان سو قادنا فيلم كبرمستر بارتون سيدان كورقنا فيلم كمان شيكديسا والله اللي سودو كلا ساكا فرتنا شان لا كنتم بقولكيبا يو كفر ما حزلا فيلم دونا عاو فيت كسودو قلبيه ماشي او غاري اسلا ايغ دونا صاحبada قلبيه فيلم ka hoos ayu soo dhacay 35 boqolkiiba iyo ma sidoo kale caawa fiidkana oo soo qarar qaatay maadaama 40 boqolkiiba oo ima sidoo kale estimate ya qiyaasta waxay sheegay saaxiibada qiimaha badan filimka maalintiisa kuwaad ganacsigiisa waxa loo yaqaan dibadda la soo xareen doon lacag gaarayso 45 karo sidoo kale
36 crore gudaha Hindiya ayuu ka keeni doonaa 9 crore suuqyada caalamka ayuu ka keeni doonaa wadarta guudna 45 crore ayuu soo xaran doonaa lacagta gross money sida daraadda waxa leeyahay filimkan dhaywankii saaxiibada nidaamka loo yaqaan bumper opening ayuu la imaan doonaa sidoo kale filimkan weekendga markuu ka baxana maalmaha shaqada hadii lagu guda galo sheekadiisa maadaama ay ligata way adagtaa leeyahay ganacsi adag inuu sii sameyn doono sidoo kale Ranbir Kapoor waxa leeyahay mar kalena filim burbur ayuu qaadan doonaa taasna waqti ay wandii doonaa laakiin filimkan caabana sararka ayuu soo sameeyay fiidkan markaana saaxiibada waxaan ciwaanin ka haynaa filimka weyn lagu magacaabo Pushpa 2 sidaan ka warqabna Pushpa 2 teamkaas ku imaadeen waa lagu dhawaaqay sidoo kale filimkan xalfada yar oo inta badan buuja loo yaqaan ay qabsadeen waa la qabsadeen waxa la rajayn doonaa weegan ugu soo fadlay filimkan dubistiisa inay bilaaban doonto saaxiibada maanta ciwaanada ugu waaweyn soo baxay waxay tahay filimkan Atrisha lagu magacaabo Rashmika Mandanna waa laga cuna doonaa sidoo kale Atrisha kale ayaa loo dhiibi doonaa sidaan ka warqabna filimkan Pushpa waa filim taariikhi sidoo kale Allu Arjunna oo blockbuster taariikhi ka dhigay filimkan qaybtiisa kuwaadna saaxiibada ay galgisho gudaha Hindiya daafaha caalamka Pushpa waxa laga filayna waa wax weyn waxa leeyahay sida daraadeed maadaama filimkan Pushpa 2 la rabo in hadalhayntiisa cirka sar laga dhiga inta badan shabakadaha waxay qoraan filimkan waxa Atrisha kuwaad loogu dhigi doonaa gabadh lagu magacaabo Sai Balafa maadaama gabadhan talented actor ay tahay sidoo kalena shacbiyad balaaran gudaha Hindiya dhankaasi koonfur Hindiya ay ku leedahay markii koonfur Hindiya la joogo saaxiibada Rashmika Mandanna waxay noqonaysaa cunug yar ay noqonaysaa markii loo fiiriyo Sai Balafa maadaama Sai Balafa saaxiibada inta badan filmada kaalin la xad ay ka qaadatay sidoo kale shacbiyad balaaran ay leedahay waxa la leeyahay saaxiibada inta badan director-ka lagu magacaabo Sukumar wuxuu la xiriiray Atrishada lagu magacaabo Disha Batani oo suurtagal ah Disha Batani inuu mashruuca Atrisha ku adkaaga dhigay sida daraaddeed hadda wararka ugu dambeeyay waxay yihiin in filimka Rashmika Mandanna laga saari doono Atrisha kuwaad lagu dhigi doono gabadhan lagu magacaabo Sai Balafa sida daraaddeed warkan waxay ka soo kordha waa arka doona waa una xanta jirta maanta inta badan shabakadaha ay soo qoraan hadda wada muqalata saaxiibada hadii Disha gabadhan lagu magacaabo Sai Balafa Atrisha kuwaad lagu dhigi sidoo kale Rashmika Mandanna laga cuna adiga ma taageersan fikirkaas aragtidaada comment noqrayb inkastoo aniga aan qabo Pushpa hadii loo daay gabar lagu magacaabo Rashmika Mandanna ay wada la fadhido doorkeeda maadaama doorkii Pushpa 1 aan daawanay Rashmika ay sidoo kale Allu Arjun saaxiibada isfahanka shaashada ay ka soo bandhigeen in bacdama sida daraaddeed waxa leeyahay hadii warka uu run noqdo gabadhan lagu magacaabo Sai Balafa Atrisha kuwaad filimkan ka noqoto waxay noqon doontaa ayada sidoo kale Allu Arjun saaxiibada waqti dheer kadib inay isla shaqeyn doonaan sida daraaddeed waxaan sugnaabo waa shaqada filimkan weegan ugu soo fadlay markay bilaabato hadii gabadh lagu magacaabo Rashmika Mandanna Atrisha kuwaad ka noqon doonto ama Sai Balafa saaxiibada qiimaha badan lagu bedeli doona waa arka doona laakiin waa un xanta jirta maanta ugu dambeyn saaxiibada qiimaha badan aan soo qaadana Todiin instrument oo kala filimta aan kala daawaday maanta oo kale waxa la daawaday filimka lagu magacaabo Salaam Namaste filimkan waxa la daawaday 9 September 2005 la daawaday hogaamiyaasha filimka markaan fiirino waa Saif Ali Khan President Arshad Warsi sidoo kale waxa director-ka in lagu magacaabo Sadad Ananda ayaa director-ka sidoo kale waxa producer-ka in lagu magacaabo Yash Jabri Jiriyood oo saaxiibada qiimaha badan shirkadda Yasharaaj Films markaas madax u ahaa markaan fiirino filimkan waxa la saaray tiyaatar gaaray 325 shilin ayaa laga daawaday xaluu qaris garay filimka miisaanad gaaray 12 crore cumraantiisana soo xiray lacag gaaray 66 crore taasoo ka dhigan filimkan natiijo inuu noqday xidda meesran ayuu noqday markaan fiirino lacagta gaaray 66 crore hadii sicirka maanta lagu jaangoyna almost waxay dhigantaa 60 crore bar ay dhigantaa sidoo kale filimkan lagu magacaabo Salaam Namaste saaxiibada waxa tigidh goosashada ka daaw sida diiwaan gashan dad gaaray 6,329,000 qof ay tigidh goosashada ka daawatay natiijada filimkan wuxuu noqday xidda meesran ayuu noqday wadkuma santi daawashada daawatan muuqaalka data markii ugu horeysay boqonayn channelka subscribe noo saar sidoo kale leeyna muuqaalka like noo saarto aragtida comment noo qoray hadda kamid ah saaxiibada roon jooga muuqaalka sharci saaxiib wanaagsan hadii kale channelka ugu soo biiranta barnaamijka mid ku kulmeeno amaana Allah salaamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh